howlwadeenno ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo dhawaan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland u kala dirtay gobolada iyo degmooyinka dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay gurmad caafimaad ka waday deegaano hoostiga gobolka Hawd kuwaas oo fulinayay daaweyn dhinaca xoolaha dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada gobolka Hawd oo aan la kulanay ayaa noo sheegay in xaalufka iyo abaarta baan dalka ka jirta ee saameynta weyn ku yeelatay xoolaha ay dhaqanayeen ay u dheer yihiin xanuuno kala duwan tiimkii xanaanada xoolaha ayaa nala jooga marka waxaan leenahay tiimka nala jooga tiim kelidii wax ka qaban karana maaha meesha xanuunkan imika jiraana waa xanuunka xoolaha mariyay geelii baa imika xitaa ugu dambeeyo geelina waa socdaa xanuun baa galay marka waxaan leenahay bal tiiman badan iyo dawooyin badan nala soo gaaray iyagana marka waxaan leeyahay sidaa imika aanu arkaysaan xoolihiina loo talaalayo ee loo joogo waxaan leenahay loo soo kordhiyay dawada iyo tiimankaba nala jooga tiimkii xooluhu way bukaan wax dhimanayana way leeyihiin wax deegaaja laynaysa iyo wax cudurreynaya way isugu jiraan qoladii dhakhaatiirtii ka socotay wayna soo gaadhay wixii ay nagu soo gaareen way noo daweeyeen geesta kale howlwadeenada ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaanu ka waraysanay gurmadka caafimaad ee ka wadeen maalmihii u dambeeyay deegaanada kala duwan ee gobolka Hawd anagoo ah tiimka loo diray gobolka Hawd dhakhaatiirta ka socota wasaaradda xanaanada xoolaha waxa weeye abaar baahsan baa horta ka jirta wadanka xooluhuna waxa weeyaan gaajo ayaa cudurkii u dheer waxa weeyaan markii ay tamar yareeyeen 100 xanuun iyo 100 waxa weeyaan towsood oo kala ku soo baxay waxa weeyaan dadkii iyo xoolii way isku mid qofkina uu cabanaya xooliina waxa weeyaan way istaagayaan baqtigoodu waa meel walba yaala wixii anagu waan wadnay gurmad ahaa waanu qabanay aanu ku aragnay xoolaha dawo ahaa aanu siin karanay wixii baahiye kale jirtayna iyaga waxa weeyaan soo gudbistay horta deegaan ballaaran oo aan soo marnay ilaa kaabada qolqol bilgubadle gumburaha baleecase runtii waxaa jirta abaar aad u ballaaran oo aan hore loo arag xoolaha adigu wixii daaweyn u baahnaa welibana nafaqooyin ayay u badan yihiin waanu samaynay xanuunaha kiisas cusub oo runtii aanu aragnay insha Allah waxaan u gudbinaynaa riboodka wasaaradda Maxamed Jiciir Ahmed iyo Axmed Maxamed Cawaale TV qaranka Soomaaliland bilgubadle